Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. This is Malin Muhammad Abib from Grand Online Academy. Hope you guys all doing great and welcome to our lesson for today. Today's lesson is on page 8 and we have a new lesson. Kusoo dhawaada casharkeena maanta ardayda sharafta badan. Halkani waa Grand Online Academy. Waxaan la hadlayaa Malin Muhammad Abib. Waxayna maanta qaadan doonaa cashar cusub oo ku yaala bogga sideedaad ee boggeena General English bogga sideedaad insha Allah taala. Maanta waxaan qaadan doonaa cashar cusub oo ku saabsan family marka family qoyska. Cashar cusub oo ku saabsan qoyska. Kelmadan family looguma dhawaaqo waa family ayaa loogu dhawaaqa qoyska. Sida sawirka ka muuqata waxaad arkaysaan aabe iyo ilmihiisa yara iyo hooye iyo ilmeheeda yara, hooye iyo aabo oo labadaba markaa maaweelinaya caruurta yaryarayd ama wax u dhigaya ubadka yaryara. Good. Marka xaggan waxaan ku haysanaa introduction, waa su'aalo. Inta badan cashar kasta waxaanu qaadanaa su'aalo at the beginning xagga bilowga ah, sababtuna ay tahay we need to just warm up si aynu isku diyaarino aynu qaadano aynu ka jawaabno kabacdina aynu casharkeenu guda galnaa. Good. Question number 1, do you have any brothers and sisters? Miyaad leedahay wax walaalo oo inama ah iyo habla? Do you have any brothers and sisters? Ma leedahay walaalo inama ah iyo habla ah? Good. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Imse inamado walaalo ah iyo imse habloodoo walaalo ah ayaad la dhalatay? Good. Is anyone in your family traveling right now? Is anyone in your family traveling right now? Waqti xaadirkan ma jira qof ka mida qoyskaaga oo socdaalaya ama socdaal ku jira? Traveling right now, waqti xaadirkan. Where do your brothers and sisters work? Where do your brothers and sisters work? Halkee ayay inamadaad walaalaha tihiin iyo hablahaad walaalaha tihiin ka shaqeeyaan? Xaggay ka shaqeeyaan baad sheegaysaa. Good. Let's now move on to the grammar section. Aynu hadda u gudubno qaybta grammarka insha Allah taala. Waxaan ku qaadan doonaa conjunctions. Conjunctions waxaa la yiraahdaa xiriiriyaal. Waxay xiriiriyaan, they connect or join words. Waxay isku xidhaan erayo. Good. Conjunction is a word which is used to join words, phrases and sentences. Conjunctionku waa erayo loo isticmaalo inay isku xidhaan erayo kale, two words ama more than two words, sidoo kale inay isku xidhaan basically sentences, jumlado. Good. Waxaan ka baran doonaa saddexda conjunction. Marka conjunctionkan waxaa loo yaqaanaa coordinating conjunction. Waa and, or iyo but. Saddexda eray baan ka baranaynaa. Good. Let's start with and. Aan ku bilowna marka and. And waxaa loo isticmaalaa links similar. Marka kuwa isku midka or like ideas, kuwa fikrada isku midka baa loo isticmaalaa marka laba shay isku mid ah la isku xidhayo. Good. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa for additional things. Casharka marka conjunctionka waxaad ka helaysaan boggeena insha Allah in ku leenahay Facebook at Grand Online Academy anigoo ku sharaxaya si faahfaahsan. Good. Marka waxa weeyaan additional thing, additional information oo kale ama thing ayaa loo isticmaala wax dheeraada markaad sheegaysid. For example, I have a book, waxaan haystaa book and a pen iyo qalin. Good. Hadda la yiraahdo what do you need? I need a book and a pen. Waxaan u baahanahay qalin iyo book. And wax dheeraada markaad sheegaysid ama markaad isku xiriso wax isku mid ah, similar. I have one brother and two sisters. Halkaas waa one. I have one brother, waxaan la dhashay hal inana, and iyo sidoo kale two sisters. Markaad wax dheeraada sheegaysid ba and baad isticmaalaysaa. I have one brother, waxaan la dhashay hal inan, and two sisters iyo laba hablood. Hal inan iyo laba hablood. Marka tusaale kale haddii aan ku siiyo waxa weeyaan I want a pen and a book. Waxaan u baahanahay I want a pen and a book. Waxaan u baahanahay qalin iyo book baan u baahanahay. Qalin iyo book. Good.
I want halka waxa weeyaan I want waxaan u baahanahay a pen marka yara lahada I want a pen and a book qalin iyo book baan u baahanahay I want a pen and book good marka xaggan waxaan ugu qornaa addition it's used for addition wixii dheeraada markaad sheegaysid good aynu gudubna but laakiinse baaf Soomaali laga laakiinse links waxa isku xidhaa contracting ideas markaad wax kala reebsid conception ala isticmaalay markaad wax kala reebisid aynu eegno I have one sister hagaas waa one sister waxaan la dhashay hal inan but no brothers laakiin wax inamaa lamaan dhalan I have one sister but no brothers laakiin waxaan la dhashay hal inana laakiin wax inamaa lamaan dhalan good okay or waxa links alternative ideas markaad wax kala dooranayso kala doorasho markaad sameynaysaa or la isticmaalaa as an example is your brother from London or Coventry walaalkaa wuxuu ka soo jeedaa ama uu ka socdaa magaalada London or Coventry mise magaalada Coventry is your brother from London or Coventry halkee ayuu ka socdaa labada good marka or waxa loo isticmaalaa markaad wax kala dooranayso okay for example haddaan tusaale kala kaas iyo xagaas okay very simple do you want a pen or a book do you want a pen or a book ma qalin baad doonaysaa mise book do you want a pen or a book ma waxaad doonaysaa qalin mise book kaad doonaysaad sheegaysaa marka or waxaa loo isticmaalaa markaad alternative wax kala dooranayso but waxaa loo isticmaalaa markaad wax kala reebisid for example iyadana haddaan tusaale dheerada kaa siiyo okay waxaad oran karto I want an apple waxaan doonayaa tufaax I want an apple but not an orange haye waxaan doonayaa tufaax laakiinse ma doonayo orange liin I want an apple tufaax baan doonayaa but not an orange laakiin ma doonayo liin good halkaa waxaan ku baranay markaa waa kuwa la odhanayo basically waa maxay conjunctions marka haddaynu gudubno qaybta xigta markaa basically waxa weeyaan numbers tusaalayaasha waxaan idhahda marka xagga nambaradaynu barana okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 halkaan 11 baa ardada qaar ugu dhawaaqaan dhawaaqa saxda wada eeganaysan 2 alif 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 41 50 51 60 70 80 90 100 dhammaan saasaad ugu dhawaaq doontaa aniga insha Allah tacaala codkiinana waad soo duubi doontaan this is the end of the lesson and I hope you found it very useful see you in the next class assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh